waxaan soo fadhiisanay shirkan jaraa'id aanu qabanay anigoo ku hadlaya magaca saldanada dir degan gobolka Awdal Sultan Daahir Cismaan Cilmi uqaashaydii dhaqankaygii ku hadlaya waxaan mahadnaq iyo bogaadin iyo hambalyo u jeedinaynaa walaalaha iyaga dhaqanka hawiye ee xalay ka hadlay arrintii muddada badan socotay dhegaha ku dhacaysay dadka habar wacashada ahayd durmaanka sharka ahayd ee ay garaacayeen beesha majeerteen ay hormuudka ka ahayd oo maraysay gabdhaha iyo wiilasha iyo waayeelka iyo abwaanka iyo fanaanka intaba maraysay oo yaa reebel ay lahayd waa filaynay inay dhalayso waxaa marka hore aad iyo aad baan u bogaadinayaa dhaqanka beelaha hawiye xalay ka hadlay arrintaa waajibkoogayna guteen durmaankii baana dhalay maantana waxaan u jeedinayaa shalay ma aha maanta shalay bay namadu malaha arkayeen nimankaa isaaqoo mucaarada oo duulaan oo dawladda ku duulaya oo la dagaalamaya oo cidna aanay la soconin oo cidna aanay raacin oo warbiloo ka tartalilayo laga hortegayo oo la laynayo shalay malaha arkayeen sidaasay u qaateen inay bahgooni yihiin hooyadood galgaal maaha dir bay ka dhasheen irir bay ka dhasheen kuwa xalay hadlayay ka dhasheen inamada dhalinyartaa ee iminka kacay ee maamul goboleedada haysta ee ciyaartu cusub tahay waxaan leenahay fidnada joojiya intii hore aynaga eegtaa halkaa ku joojiya ee warkac iyo cabdiweli waxaan ku darayaa islaamnimada la isku wacdiyaa nabadda la isku wacdiyaa nin kelidii geed oo meel taagani ma jiro waxay garan waayeen waxaad garan weydeen gabagii qamaan bulxan dhowr iyo 40kii u lahaa ii doordir weeye hadduu duulan soo bixiyo didi habar magaaluhu hadduu dabarka soo goosto dumbuq iyo rasaasna hadduu dabacsan u siiyo horta yaa la da'a way la yaabto iyadaan xuliye ugu lahaa cali dhuux baa xataa garan weydeen waan dhegaysanaynaa waxaan ilaalinaynaa islaamnimada wada dhalashada ehelnimada soomaali hooyi aabba keliya wada dhalay markay ishaybisana ee hayb la doonana dee haybay noqotaa way kala dareeri waa geela la isku darsaday ee cuurkee barqaba geli ka dhalayo haddana kala dareeraya ee kadimada kala ah kadimada ha banaynina sharka ha tumina kismaayaa hadlaysa gedaa hadlaysa gaalkacayaa hadlaysa waxaa hadlaysa 5 qaaradood baa laga hadlayaa khaasadan waxaan la hadlaynaa culimaa u diinka ilaahay waajibkii u faraha ku hadlaan oo dadka la hadlaan oo ka waaniyaan waxan waa ka joojiyaan laba xukuumadood oo maamul goboleedka Puntland la yiraahdo iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ciidankoogii baa isku dhacay waana dagaal siyaasi ah waana mid xuduuda waa mid dastuuri ku ah Soomaaliland oo ay qaadatay 19 beelaha harti cidna ugama badnayn shirka kuwii go'aan biyay haayeen kuwii saami qaybsiga shir weynii boorama ee Sheekh Cali Jawhar
saami qaybsiga ku qaateen golaha wakiilada ku noqday maantana lagama laha laakiin nimankaasi fidnada Soomaaliyeed horseeday shar durbaanka ay garaacayaan seediyaal abtiyaal ka daayaan leenahay intaasaan u soo joogsanay waxaad ogtihiin in gudoomiye xisbiga ucid Faysal Cali Waraabe oo yiri warboormana waad ka buuxdiin oo jaamacadaad ka buuxdiin halkana waad joogtiin waar godobtu yaryaraysa bale ka daayay waxa ku dhacay waad ogtiin inta cida ee ka daba hadlaysa ee sidoo u yiri le ee salaadiin iyo wax garad iyo birimageyda ah looma baahna durmaanka sharka in la tuman loo baanee saacadii u dambeeyay Ramadaan ta lagu jiraa Ilaahayna ka baqa raxiim Allahumma salli ala Muhammad horta hadalka jiifka iga horeeya dhameeyay inta uu yiri waa la qabnaa marka waxa weeye horta ninka daarooda yiri baa dirooy keenay irirayna keenay waxa weeye sida uu sheegay meesha laba maamul baa isaya maamul maxay ahayd Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyadu maxay ahayd iskeed u taagan oo jamhuuriyaddii la soo noqotay jamhuuriyaddeedii hore iyo maamulka Puntland ee Soomaali weyn ka tirsan ayaa isku haya xuduud marka dadka shicibka ama dadka u qaasha inay waxay ahayd dhexdhexaad ka ahaadaan oo sidii dagaalka loo damin lahaa ama sidii looga hortagi lahaa ama sidii labadayna maxay ahayd u qaasha iyo salaadiinta iyo culimadiinku uga hortagi lahaayeen inaan galabay ahayd oo inteena kala dhexdhexaad noqono wuxuu waa labadeennii namood Soomaali baa layna yidhaa abtirsiin dheer ma lihin waan wada dhalanay inaan taawun ka talinay ahayd ma ahayn inaan daarooda ay la yidhaaho oo xamasta la geliyo oo dumarku ooyaan oo qiire la geliyo oo beelboqol ninkeen la yidhaaho oo xuduudka lagu soo jufo oo haddana beelboqotonkeen la yidhaaho oo xuduudka la keeno oo ilaa Kismaayo ilaa halkaa la isdaba joogsado ma ahayn waa fidma weyn oo la samaynayo waxa weeyaan waa fidma la samaynayo waa fidma sii fidaysa marka waxaan uga digaynaa daarood waar daaroodow isaaq kalidigii ma dhalana dir buu la dhashay irir buu ka dhashay ma jeerteenow sidaa weeyaan ninka maxay ahayd halka waxa ku hadlayaa fidmu wadaa war waxa weeye Ramadaan baa ku jiraa alloo tooba keena Ilaahay si xun baad u dhaqmaysay 20 carruur aad ku leysay sayla adoon maxkamad saarin oo waxba weydiin dadka kale ma oga aduu se waad ogto waad garanaysaa waa fidmadeedii waxaad wadaay marka waxa uu leeyahay oo muslimiinta u sheegaya oo daaroodka u sheegaya waar daaroodaydan waxa aqbalina ka daaya waxa weeyaan inagu dhexdhexaad noqono culimadu dhexdhexaad noqoto uqaashu dhexdhexaad noqoto salaadiintu dhexdhexaad noqdaan siyaasiyiinta aan kala gaadhno xadka aan imanno aan kala joojino labada xadba waa lagu jiraa daaroodku xagga suka u jooga dirku xagga shisha u jooga uu dagayay Soomaali weyn waa ka mid marka waxa weeye in anagu dhexdhexaad noqonay hayde waar durmaankani la garaacayo maxay ahayd ummadii la isku jabiyay waxaan eegan karno uu noqon waayay galin baan dhiga adeegnay waan iska aamusnay bal daaroodku isaga isqaban oo isjoojin baan nidhi isaga isqaban doono qaar baa ka hadli baan nidhi hadda xitaa Soomaali maxay ka hadli wada Soomaaliya ka Itoobiya ka hadli baan lahayn oo orani waar waxaan daaroodka ka joojiya labada xukuumadood waan dhex galaynaa ayaan ku wadnay ma garanaysaa oo in maxay ahayd la dhex galo oo maxay ahayd u dhex galo maxay ahayd xukuumaddaasi iyagu dawladda kililka ayaan ku wadnay marka iyagna way hadli waayeen laftoodu waxaan u sheegaynaa madaxweynaha inuu dhex galo oo dhexdhexaadiyo oo arinta maxay ahayd Soomaali ku dhex galo ka jaraa'id ee odayaashu ay xagga hore ka soo sheegeen kuna saabsan mahadnaqa hawiye nimanka xalay ka hadlay magaala madaxda Muqdisho xamar ka hadlay oo runtii waajibkoogii oo ay gelinba ay dhigaysanayeen xalay shaaca ka qaaday aad baad u mahadsantihiin taasi waa mahadnaqii odayaasha beelaha hawiye dhaqanka waan u mahadnaqaynaa haddaan nahay
dhaqankii beelahan gobolkan awdal qaarkood ama gadabuursi sidaa markay tahay waxaan intaa ku darayaa horta fikirka odayada iga horreeyey hadalka way dhameeyeenoo dee nin laba oday ka horreeyeen waxba loogama tegin intaa ay yidhaahdeen waan ku raacsanahay waxaaseen ku darayaa fidmadu horta ninkii toosiyadda waa la sheego masiibadu waa wax sii socota daaroodku maanta uguma horeysa majeerteenka maanta uguma horeysa fidmadu cabdirashiid cali sharmaarko ka dhashay bay dileen walaas caanood ku dileen kow bay ka ahayd isma aamini doonaan waa kuwan de madaxweynihoogiiba dilaya waa horta waa fidma ilaahay ku soo toogtay Soomaaliya sidaa markay tahay waxaan leenahay kullay dad malaha ilaahay yaqaanaana uu ku jiraay waa kuwa samaanta marada dhexda ku xidhay dumarkiina waalay kuwa dibadda joogay kuwa dalka joogabe wararta culimaha deelayeen dumarka iyo dadkan hadajiyaan media dadka adiyadu ay ka fajacday midna iska daayaano Soomaalidan ay khiyaameynayaan iyaga shanshada kaga jabi doona khiyaanadana ha joojaan waayo imika madaxweyne daarooda Soomaaliya xukuma haddana yaa daarooda ay leeyihiin kasbanayaan markaa waa siyaasad xumo waxa ila tahay waxa is haya waxa meesha isku haya waa Somaliland dawladda Somaliland ee la soo noqotay gobonnimadeeda 19 iyo maamul ka tirsan Puntland oo Soomaaliyan nahayra kol la daarood baan nahayra labada calaamad mid ha qaataan ama calanka daarood ama calanka Soomaaliya weli lama maqal qolada ay saqa ku sheegayaan Somaliland bay sheegaan Somaliland daarood baa kamida gadabuursi baa kamida ciisa kamida gabooya kamida dawaa bulsho soo godayo horseedkii Soomaaliya googo'a iyagu ka ahaayeen waxa kale oo inta ku daraya shacbigu Soomaaliya meeshuu doonaha jooga xuduud ma kala leh kuwa Puntland way joogaan Somaliland nabadgelyo iskaga joogayaan sharaf iyo maamuus bay isku leeyihiin hadduu arday yahay iyo hadduu ganacsi yahayba kuwa Somaliland jooga u dhashay muqdisho iyo meel kasta ay daadsan yihiin Puntland bay joogaan wax xuduudaha iyagu ay leeyihiin oo cidi ku kantaroolaysa ma jirto gobonnimada Soomaalida taasi ma laha waxaan ka hadlaynay uun ma garanaysaa xagga siyaasadda dadka siyaasiyiinta ee xuduudaha iska haya way ka madax bannaan yihiin kuwa jaamacadaha tagay iyo kuwa meel kasta jooga cid wax u dhimi kartaana ma jirto cid wax oran kartaana ma jirto cid hadal qaadi kartaana ma jirto ninka soo jaamacadaha kuwa yuhuudda wax laga dhigtaa wax kale iska daayay waaba dad Soomaaliyeed oo walaala oo wax badan ka dhaxeeyaan oo abtinimo ka dhaxayso oo ehelnimo ka dhaxayso oo adeernimo ka dhaxayso oo soo wada dhaqnaan jiro oo walaala oo sharaf gooniyo wada laha taa waxaan u leeyahay hadal waa dhaweyd ka soo baxay oo siyaasi sare oo reer Somaliland ka soo baxay oo aanan doonayn inaan ku sii xeel dheeraado oo dadku u wada jawaabay ayaan intaa u taabanayaa sidaa darteed waxa weeyaan intaasaan ku gabagabaynayaa xuduudaha iyo barnaamijka siyaasadeed dawladaha jooga ku shaqale laakiin shacbi